bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaanlo idinla socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad waddanka TV ku daawad doontaana waxaa ka mid ah shirkii dhuusamareeb oo guula ku soo dhammaan raba iyo qodobo laga heshiiyey madaxweyne farmaajo oo muddada xilka loo kordhinayo si uu u helo waqti ku filan ee waxa uu dhiman uu ku qabsanayo WHO oo sheegtay in aan meesha laga saari karin in shaybaar lagu sameeyey cudurka corona jamhuuriga oo Ilhaan Cumar u beegsanaya si ay uga dabaaqaan tilaabo ay qaadeen dimuqraadiga kalluun muuqaal cabsi badan leh oo aysan kaamiradu qaban karin oo lagu arkay gunta fog ee badda komishinka doorashooyinka Itoobiya oo digniin u diray Abiy Ahmed iyo xisbiga uu hogaamiyo maxkamadaynta madaxda mucaaradka Itoobiya walaac laga muujinaya Jawaar Maxamed oo cuntadii ka soomay iyo Itoobiya oo fashilisay weerar lala damacsanaa safaaradda Imaaraadka qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 Febraayo 2021 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar waddanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore shirkii dhuusamareeb ayaa laga soo sheegayaa guulo waaweyn iyadoo madaxdii halkaasi ku kulantay ay ka heshiiyeen qodobo badan oo la isku diidanaa qodobada laga heshiiyey waxaa ka mid ah in marka hore madaxweynaha xilka haya muddo kordhin loo sameeyo si loo dhammaystiro arrimaha caqabadaha ku ah doorashooyinka iminka waxaana la isku afgartay ilaa iyo sanad in lagu daro xukuumadda Roble in ciidamo qaran oo federaal ah la sameeyo kuwaasoo meesha ka saaraya ciidamada reeraysan ee ay maamuladu iminka haystaan si amniga dalka ay u hantaan in ciidamada shisheeye ee muddada badan dalka joogay laga saaro islamarkaana la garab istaago ciidamada xoogga dalka lana kordhiyo tiradiisa iyo tayadiisa in maamul walba uu ka saaro deegaanadiisa argagixisada ku nool maamulkii aan haysan awood ku filan oo isaga saarana garab ku filan la wada siiyo in shirweyne qaran ee dhabu heshiisiin ah la qabto islamarkaana Soomaalidu iyada ay ka tashiga waddankooda isugu yimaadaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa iminka laga wada hadlay is-afgarad buuxana laga gaaray shirkuna weli waa uu socdaa dadka dhuusamareeb ku sugan ayaa farxad ay u wada tahay iyo guud ahaanba Soomaalida oo dhan maadaama sida laga filayay shirka si ka duwan oo wanaagsan looga heshiiyey mustaqbalkii Soomaaliya dhuusamareeb ayaa la ciiraysa dad fara badan oo Soomaaliya ka kala yimid nabad buuxda ayaana ka jirta magaaladana si magaalo ciid ay ka jirta ay dadku dariiqyada ku marya xabiibsanayaan wufuudii kala duwanaa ee yimid madaxda iyo wufuudaha iyaga oo nabdoon oo faraxsan ayaa qof waliba qofkii ay barisimaadkii ugu dambeysay salaantiisii iyo qaraabanimadiisii iyo ehelnimadiisii raadinaya dadkuna raxan ayay u wada socdaan caawa magaalada dhuusamareeb waa tahay iminkana koox baaris wadda oo ka tirsan ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa haatan ku sugan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ah halka uu asal ahaan markii ugu horeysay ka soo bilowday cudurka corona sanad ka hor ujeedka kooxdan ayaa ah in la go'aamiyo asalka cudurka corona iyagoo ururinaya xogo kala gedisan waxa ayna sheegeen in ay heleen xogo muhiim ah sida uu yiri Dr. Peter Daszak oo guddoon ka ah NGO la yiraahdo Eco Health islamarkaana kooxdan ka tirsan oo u waramay Sky News wuxuu intaasi raaciyay in meesha aan laga saari karin aragtida ah in cudurkani yahay mid macmal ah oo shaybaar lagu diyaariyey taasoo ah ra'yiga ay qabaan dad badan gaar ahaan kuwa qaba aragtida dhagareedka waxaanu ka warqabnaa aragtida ah in cudurkani uu shaybaar ku lug leeyahay waana su'aal aanu dadka weydiin doono gaar ahaan macadka cilmiga ee cudurrada ee Wuhan ayuu yiri Dr. Daszak oo sheegay in ay raaci doonaan halka ay cadaymuhu u wadaan jiha kasta oo la aado waa taa iminkana xildhibaanada jamhuuriga ayaa qaab dabaaqiid ah u doonaya inay Ilhaan Cumar ka ceeriyaan guddi ay ka tirsan tahay maadaama ay dimuqraadigu sidaas oo kale ay la maagan yihiin Marjorie Taylor oo ka tirsan jamhuuriga sida uu faafiyey Fox News Ilhaan Cumar ayaa loogu marmarsiinaya inay sheegtay hadalla yuhuud nacayb ah taasoo ku filan in laga ceriyo guddiga ay ka mid tahay sida midka miisaaniyadda iyo midka xiriirka caalamiga ah jamhuuriga ayaa doonaya in ay tilaabadan ay ku barbareeyaan mid ay qaadeen dimuqraadiga oo sheegay in howlaha guddi ka eriyadan ee Greene oo ay sheegeen inay tahay qof dheg weyn ah
oo iska qaadata wararka ka yimaada kooxaha faafiya aragtidhagareedyada. waxyaabaha ay Mrs Greene sheegtay waxaa ka mid ah inkiraadda toogashooyinkii iskuullada ka dhacay iyo weliba in ay muujisay aragtiyo ay ku taageerayso gacanka hadalka iyo weliba qaaqulooyinka. waa tahay iminkana koox culimo ah oo yaqaana biology badeedka ayaa helay 16 gacalo oo aadanaha ku cusub oo ah kalluun awood u leh inuu mugdi iska dhigo maadaama uu jirkiisu nuugayo 99% elayska uga yimaada dibadda, taasoo ku dhowaad mustaxiil ka dhigaysa in ay arkaan xayawaanada kale ee ku nool gunta hoose ee badda. cilmi baarayaasha oo qoraalkan ku daabacay Current Biology ee gacalooyinka cusub soo helay ayaa shabaq u riday meel 200 mitir oo dhow gacanka California ee metri u jirta. markii taas laga soo tago, waxa uu kalluunkani leeyahay iftiin jirkiisa ka daarmaya, waxaana ugu daran inuu qaybta hore ku leeyahay nal dhinac buluug ka ah dhinacna casaan ka ah, isagoo sidoo kale mar qura jirkiisa oo dhan nal ka shidi kara. Karen Osborn oo arrimahani wax ka qorta arrimaha biology badeedkana aad u falanqaysa ayaa sheegtay in ay yaabtay markii ay isku dayday in ay sawir ka qaado, balse walow ay dhowr mar sawirtay ay waxba arki weyday. waxa ay sheegtay in ay la yaabtay inuu marna wada nal noqonayo marna mugdi iska wada dhigayo, weliba si aan caadi ahayn uu gebi ahaanba uu mirqayo. markii baaris qoto dheer lagu sameeyey jirka kalluunkani, waxaa soo baxday inuu jirkiisu leeyahay lakab midab sida ah oo la yidhaahdo melanosomes, kaasoo ay ku jirto melanin oo la mid ah midabsidaha jirka dadka iyo timaha, iyadoo oo melanosomeskaasi uu yahay midka nuugaya nalka dibadda uga yimaada sida bikaaca ay bixinayso kaamirada ee ifinaysa waxa ay sawirayso. hase ahaatee, waxaa loo adeegsaday kaamiro 600 oo jeer ka xasaasisan kaamirooyinka caadiga ah, awoodna u leh in si faahfaahsan u sawirto xidigaha fog. waa tahay iminkana komishinka doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa ka hadlay dacwadii xisbiyada amxaaradu ay u soo gudbiyeen ee la xiriirtay in magacbixin loogu geysay dibadbaxyadii Oromiya ka dhacay. komishinku waxa uu sheegay in xisbi diiwaan gashan sifa sharciga baalmarsan lagula kaco hadalla magacbi'in muujinaya. komishinka ayaa digniin ku soo saaray qoraalada iyo weliba halkadhigyada xilliyada dibadbaxyada loo adeegsanayo. waxa ayna sheegeen in la samayn karo tallaabo qaadis xayuubinta murashaxnimada gaarsiisan. Bertokan Madikisa way abtirsatay, waxa ayna qulubta u qaboojisay buuraleyda baryahan tafaha haysatay ee dhalishay. wataa iminkana mid ka mid ah qareennada Jawaar Maxamed oo lagu magacaabo Maxamed Jim ayaa warbaahinta u sheegay in Jawaar oo hadda ku jira gadood cunto ka soo mid ah uusan maanta la hadli karin warbaahinta. laanta la dagaalanka argagixisada ee maxkamadda sare ee federaalka ayaa lagu wadaa in ka dhageystaan markhaati furka 24 ruux oo wax laga weydiinayo kiiska Jawaar Maxamed. Jawaar Maxamed, Bakeele Garba, Hamza Aadani iyo Shamsaadi Taha ayaa dhammaantoodna maanta ku jiray gadood cunto ka soo mid ah. qareenka Jawaar ayaa sheegay in isaga iyo Bakeele ay cuntada ay diideen muddo 8 maalmood ah. maxkamadda ayaa ogolaatay in ay arkaan dhakhtar gaar ah oo aan ahayn dhaqaatiirtii dowladda. markii la weydiiyey sida ay tahay xaaladda caafimaad ee Jawaar, ayuu Maxamed yidhi, si shakhsi ahaan ah waxaan u dareemay in Jawaar ay baahida si gaara u saamaysay, aad bay u daciifisay, mana hadli karo, aad bay u xanuunsanaya, ayuu yidhi. siyaasiyiintan ayaa gadoodka cunto ka soo midda ah sameeyey si ay uga mudaaharaadaan xarigooda iyo sida warbaahinta loogu diiday in ay xogtooda helaan, sida warbaahinta maxalliga ah u sheegay qareen kale oo lagu magacaabo Tuli Baisa. wariyaal iyo dad u dooda xuquuqda aadanaha oo maxkamadda u tegay si ay uga qayb galaan dhegaysiga dacwadda ayaa loo diiday in ay halkaasi joogaan. booliiska federaalka iyo ciidamada amniga ee Addis Ababa ayaa si qasab ah maxkamadda uga soo saaray ilaa 8 wariye iyo xubin ka tirsan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha si uu u soo tabiyo waxa meesha ka dhacaya. suxufiyiinta looma sheegin sababta loogu diiday in ay dhegaysiga dacwadda ka qayb galaan, hase yeeshee qaar ka mid ah askarta ayaa wariyaasha u sheegay in amar lagu siiyey in ay ka eryaan goobta. eedaysanayaasha iyo qareennada ayaa markii hore su'aal ka keenay in maxkamadda ay u furan tahay dadweynaha, iyagoo ka cabsi qabay in ay kiiskan u noqdo mid dacwadiisa si qarsoodi ah loo qaado. bishii la soo dhaafay,
maxkamad ku taalla Itoobiya ayaa daaqadda ka tuurtay 6 dacwadood oo uu wajahayay milkiilaha warbaahineed ee caanka ah Jawaar Maxamed, kuwaasoo dhammaantood la xiriira haysashada hub sharci darro ah. ase yeeshee isaga iyo eedeysanayaasha kale ayaa weli wajahaya 4 dacwadood oo kale oo ay ku jiraan argagixisanimo iyo musuqmaasuq dhinaca warbaahinta ah. ninkan oo sidoo kale siyaasi ah ayaa bishii Julaay ee sanadkii la soo dhaafay lala xiray dhowr ruux oo kale kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado daba socday dilkii loo geystay fanaankii Oromada u dhashay ee lagu magacaabi jiray Hajaalu Hundisa. Master Jawaar ayaa horay maxkamadda ugu sheegay in kiiskooda oo dhan uu yahay mid siyaasad salka ku haya, ujeeddada keliya ee laga leeyahana ay tahay sidii looga hor istaagi lahaa isaga inuu u tartamo xafiis dowladeed markii la gaaro doorashada lagu wado in ay Itoobiya ka dhacdo bisha Juun ee sanadkan. ugu dambeynna wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya ayaa shaacisay in la xiray 15 qof oo sida ay sheegeen qorsheynayay in ay weeraraan safaaradda Imaaraadka ee magaalada Addis Ababa. sida ku cad bayaanka ciidamada sirdoonka Itoobiya ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub, walxaha qarxa iyo dukumentiyo. waxaa sidoo kale wakaaladda wararka ee Itoobiya ay sheegtay in qalabkan iyo 15 qof ee gacanta lagu dhigay kadib howlgal ay sameeyeen sirdoonka Itoobiya. bayaanka ayaa lagu xusay in dadka gacanta lagu dhigay islamarkaana iyaga iyo wakiilka ah kooxo argagixiso shisheeye ah ay doonayeen in ay weeraraan amaba ay weerar ku fuliyaan safaaraddan. koox labaad oo laga shakisan yahay ayaa sidoo kale la sheegay in ay maleegayeen weerar lagu qaado diblomaasiyiinta Imaaraadka Carabta ee ku sugan dalka Suudaan. bayaanka ayaa la sheegay in sirdoonka Itoobiya oo kaashanaya dhigooda dalka Suudaan ay u suura gashay inay burburiyaan shabakad kooxo argagixiso ah islamarkaana ay fashiliyeen weerar lagu qaadi rabay safaaradda Imaaraadka ay ku leeyihiin dalka Suudaan. laamaha ammaanka ee dalka Itoobiya ayaa dhanka kale sheegay in ay wadaan dadaalo lagu soo qabanayo 22 ruux oo kale oo looga shakisan yahay in arrintani ay ku lug leeyihiin. ilaa iyo iminka ma jiro wax war ah oo ku saabsan arrintan oo ka soo baxday dowladda Imaaraadka. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. inta aynu ka gaarayno warka yaga xiga waxaan kaga tagaynaa guul iyo gobonnimo.